degdeg magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka u dhaxeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iska diiday markaasi in uu ku biiro siyaasiyiinta mucaaradka ee kuwaasi oo magacooda la yiraahdo Golaha Mustaqbalka Soomaaliya. waxa uuna markaasi sheegay in isagu uusan qayb ka ahayn siyaasiyiinta mucaaradka, sidoo kalena markaasi wada xaajood toos ah ula sameynayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wada hadallada u dhaxeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Muqdisho, iyadoo markaani wada hadalladani ay garwadeen ka yihiin dowladda Turkiga. maamulada kale ah Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa iyaguna diiday inay ka qayb galaan shirka u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe oo ay garwadeen ka yihiin dowladda Turkiga. waxa ayna sheegeen markaasi in Turkigu aysan dhexdhexaad ahayn, sidoo kalena markaasi ay toos ula jiraan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. markaasi waxaan kula wadaagi doonaa go'aanka rasmiga ee markaasi uu qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. go'aankan ma la dhihi karaa waa go'aan geesnimo ah oo uu qaatay markaasi madaxweynaha markaasi lagu magacaabo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. maalmihii ugu dambeeyay waxa ay soo tarayay warar ah in Farmaajo haddii uu ku baari waayo mucaaradka uusan qayb ka ahayn markaasi shirka u dhaxeeya dowladda iyo sidoo kale mucaaradka. taasina maanta ayay soo gabagabowday oo Farmaajo waxa uu markaasi wada xaajood toos ah la sameynayaa markaasi beesha caalamka, isagoo markaani Xasan Sheekh kala doodayo nooca doorasho ee markaasi laga qabanayo Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi Farmaajo oo markaasi qar isku tuur sameeyay iyo sidoo kale mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya wada hadaladooda oo dib ugu bilowday magaalada Muqdisho tan iyo markii dagaal uu ku dhaxmaray xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho. maanta waa la isku fadhiyaa oo guddiyo farsamo oo markaasi ka kala socdo siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa shir xasaasi ah waxa uu socdaa hotel Dagaale ee Xeedaabka Xalane. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi macluumaadka laga wada hadlayo, iyadoo haatan markaasi Farmaajo uu si toos ah markaasi u diiday in uu ku biiro garabka siyaasiyiinta mucaaradka. dani iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Axmed Madoobe oo iyaguna iska diiday inay ka qayb galaan shirka. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi sababta ugu weyn oo markaasi ay u diideen labadan mas'uul inay ka qayb qaataan shirka u dhaxeeya labada dhinac. xogahaas iyo sidoo kale xogo kale oo ku saabsan shirka iyo kulamada ka socda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Farmaajo oo go'aan adag ka qaatay siyaasiyiinta mucaaradka ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal. balse tabinteena tooska intaan u gudagelin, haddii ay tahay marka kugu horeysay aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gambaleelka furo. haddii aad horey noola joogtaan muuqaalka like saar, like-ta meel dheer ayay gaarsiisaa. fikirkaagana qaybta hoose ee faalada noogu reeb. see u aragtaa in Farmaajo uu iska diido inuu ku biiro garabka siyaasiyiinta mucaaradka, sidoo kalena wada xaajood toos ah ula sameeyo beesha caalamka iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho, waxaa ka bilowday markaasi kulamo xasaasi ah una dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. wada hadallada marka wada hadallo toos ma ah, waa wada hadallo ay ka qayb galayaan guddiyo farsamo oo markaasi ka kala socdo labada dhinac. siyaasiyiinta mucaaradka markaasi waxa ka socdo siyaasiga ruucadaaga ah ahna musharax madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2027 ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. dhanka kalena dowladda dhexe ee Soomaaliya iyaguna waxa ka socdo ninka lagu magacaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac. dhanka Farmaajo isaguna waxa ka socdo markaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdirasaaq. Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa la soo warinayay in uusan qayb ka ahayn markaasi wada hadallada tooska ee markaasi u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. maanta ayay soo gabagabowday. Farmaajo waxa uu doonayaa inuu si toos ah markaasi shir ama kulamo kala duwan oo Muqdisho kula qaato beesha caalamka iyo qaramada midoobe, haddii ay noqoto Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, UN-ka iyo sidoo kale markaasi wadamada la isku yiraahdo midowga Afrika. Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu si toos ah kala hadlayaa markaasi nooca doorasho ee laga qabanayo gudaha Soomaaliya. Xeedaabka Xalane gaar ahaan hotel Dagaale waxa ka socdo markaasi shir u dhaxeeya madasha samata bixinta mucaaradka iyo sidoo kale markaasi dowladda dhexe ee Soomaaliya. galinka dambe maanta waxa la filayaa markaasi xisbiga nabad iyo nolol ee markaasi uu hogaaminayo
maxamed cabdulaahi farmaajo in iyagu markaasi dowladda dhexe ee soomaaliya ay iyaguna markaasi kulamo kala duwan ay ku qaataan hotel dakaale ee magaalada muqdisho. shirka ugu horreeya ee haatan ka socda xeedaabka xalane ee markaasi garwadeenka ay ka tahay dowladda turkiga ayaa waxa uu u dhexeeya markaasi turkiga iyo sidoo kale madasha samata bixinta iyo markaasi guddi farsamo oo ka socdo dowladda dhexe ee soomaaliya. shirkaasna waxaa loogu wada hadlayaa markaasi sidii markaasi kulamo kala duwan oo markaasi gogol loogu xarayo in wada hadallo toos ah ama heshiis rasmi ah laga gaaro nooca doorasho ee laga qabanayo gudaha soomaaliya in laga qabto maalmaha soo aadan. garwadeen waxa ka ah turkiga labada maamul ee kala markaasi jubbaland iyo sidoo kale puntland nabada kala hogaaminaya ee lagu magacaabo Siciid Dani iyo Axmed Madoobe si cad ayay u diideen markaan in ay ka qayb qaataan shirka ay markaasi garwadeenka ka tahay dowladda turkiga. waxa ay leeyihiin turkigu qayb kama ahan markaasi wada xaajoodada u dhaxeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya marka laga wada hadlayo, oo waxay si toos ah ugu eedeynayaan in iyagu aysan dhexdhexaad ahayn. oo waxa ay leeyihiin turkigu waxa ay si toos ah ula safan yihiin markaasi garabka xasan sheekh maxamuud, oo waxa ay markaasi rabaan xasan iyo wuxuu doonayo in markaasi ay ka dhacaan gudaha Soomaaliya. taasna waa ay ka soo horjeedaan, waxaana la filayaa in kulanka khamiista oo markaasi si toos ah u dhaxmari doono madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ninka lagu magacaabo sheekh shariif sheekh axmed, xasan cali khayre, maxamed xuseen roble, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. kulankaas waa kulan si toos ah markaasi ay isku arkayaan dhammaan madaxda mucaaradka. labada ninna waxa ay doonayaan markaasi in ay si toos ah ugu soo qayb galaan kulamadaasi oo si toos ah markaasi ay isku arkayaan dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka. kulamadaasna waxaa markaasi dhexdhexaad ka noqon doono Mareykanka, Ingiriiska, UN-ka, Turkida iyo sidoo kale markaasi UN-ka. waxa ay leeyihiin markaasi 6 wadan haddii ay goobjoog ka yihiin wada hadallada u dhaxeeya markaasi siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, inagu diyaar waxaan u nahay markaasi in aan ka qayb galno, oo aan sidoo kale xasan sheekh iyo xulufadiisu aan kala doonno nooca doorasho ee markaasi laga qabanayo gudaha Soomaaliya. wada hadallo ayaa si toos ah ugu bilowday markaasi dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka. dowladdu waxay doonaysaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato gudaha Soomaaliya, waa sida iyadu ay ku doodayso. siyaasiyiinta mucaaradkana waxa ay markaasi rabaan doorasho taas ka duwan oo ah markaasi nooca loo yaqaano 4.5ka oo markaasi macno badan ay iyagu u sameeyeen. xasan sheekhna waa uu ka soo horjeedaa marka labada waxa uu kala dabqaadaya nimankan Mareykanka ah, Ingiriiska, UN-ka iyo sidoo kale markaasi wadamadan la isku yiraaho United Nation ayaa u kala dabqaadaya. waxaana markaasi wada hadalladu dhexdhexaad ka ah markaasi wadamadan aan haatan ku soo xusay. labada dhinac markaasna si toos ah ayay u soo bandhigi doonaan nooca doorasho. waxaana haatan lagu soo warramayaa xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan ka helayno xeedaabka xalane in wixii ka dambeeya kulamadaasi dhexmari doono dowladda iyo mucaaradka kadib doorashada Soomaaliya ay gacanta ku hayn doonto beesha caalamka. xogayaha qaramada midoobay James Iswan ayaa xasan sheekh maxamuud waxa uu culays xooggan ku saarayaa marka in mucaaradka uu la xaajoodo misana uu kala xaajoodo nooca doorasho ay iyagu doonayaan. waxa uu leeyahay waa inaad markaasi heshiis ka gaartaan nooca doorasho ee laga qabanayo gudaha Soomaaliya. kulamadan waa hordhac, waxaana haatan guddiyo farsaman oo ka kala socda xisbiyada nabad iyo nolol, xisbiga himilo qaran iyo madasha samata bixinta mucaaradka iyo dowladda dhexe guddiyo farsamo oo ka socda ayaa haatan waxa uu markaasi shir ugu socdaa xeedaabka xalane. wixii ka soo kordho shirka waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale barnaamijyadeena xiga, inagoo markaasi ku soo gudbin doono marba marka ka dambeeso halka ay wax marayaan, iyadoo maalmaha soo aadana kulamo waaweyn ay ka dhici doonaan magaalada Muqdisho.